بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. magacaygu waa maxay cabdilaahi ciise waxaan ahay gudoomiyaha boorka jaamacadda towdheer ee ku taalla magaalada burco. shirkan jaraa'id waxaan u qabtay in aan ka dareen celiyo warkii guusha ahaa ee lagu diirsaday ee wasiirka waxbarashada Somaliland mudane Habane uu shalayto xayiraadii kaga qaaday jaamacadda. runtii marka hore waxaan jecelahay inaan u mahad celiyo allaha weyn. ilaah baa mahad leh, guuleeyey xaqa, sugayna in uu xaqu guuleysto. ilaah baa mahad dhammaanteed iskale. waxaan runtii u hambaliyeynayaa maamulka jaamacadda iyo ardayda oo si qurux badan oo ilbaxnimo ku jirto oo gudo iyo dibadba laga hadalhayo u soo bandhigay dareenkooda si nabad ku jirto oo xadaarad ku jirtana u soo bandhigay, sheegayna oo muujiyey jaamacaddoodu waxa ay tahay, waxay gobolka ka tahay iyo sida ay u rabaan in aan laga xidhin. aad baan idinku hambaliyeynayaa, waa ku guuleysateen. madaxdii qarankuna way dhageysatay dareenkiinii. arrinkaasna waan idinku hambaliyeynayaa dhammaan maamulka iyo ardaydii quruxda badnayd ee ka howlgashay sida aqoontu ku dheehan tahay arrinkaasi u soo bandhigay dareenkooda. runtii waxaan u mahad celinayaa cid kasta oo ololahaas ama gurmadka lagu badbaadinayay jaamacadda nagala qayb gashay, oo aan ku bilaabayo wasiirka wasaaradda madaxtooyada mudane maxamuud xaashi oo runtii si mas-uuliyad ku jirto oo madaxnimo ku jirto uga bareeray arrinkaas jaamacadda. aanan odhan karayo go-aankiisii ahaa in jaamacadda arrinkeeda la isla eego oo la isla hubsadaa wuxuu ahaa kasalka u dhigay in la isku soo gaadho oo bal wasaaraddu ay si qoto dheer waxaan noola eegto. wasiirku aad buu mahadsan yahay. waxaa la yidhi dee qofka aan dadka u mahad celin ilaahayna uma mahad celiyo. arrinkaasi mas-uuliyad iyo madaxnima ka muuqatay. wasiir maxamuudna aad buu ugu mahadsan yahay. waxaan ku xigsiinayaa runtii oo isaguna aad noola howlgalay wasiiro kale oo badan oo iyaguna runtii dareemay arrinkani isla sax mooyaane oo in la isla eego mooyaane meesha inaan xidhidi ku habboonayn. wasiiradaa waxaa ugu muuqdheeraa wasiirka gaashaandhigga wasiir cadami. aad buu wasiirku cadami ugu mahadsan yahay. waxaa isaguna runtii meeshaasi aad noogala gurmaday oo nala howlgalay oo jaamacadda la gurmaday madax dhaqameed badan oo salaadiin iyo jiif caaqilo iyo odayaba leh. iyagana waxa ugu muuqdheera runtii aan jecelahay in aan xuso suldaan siciid yuusuf. aad bay u mahadsan yihiin madax dhaqameedka salaadiinta iyo jiif caaqiladaba lahaa doorkii ay ka qaateen badbaadintii magaranaysahay jaamacadda iyo gurmadkii go-aanka kasoo baxay commissionka iyo wasaaradda in ay ka gurmadeen bal sidii waxa jira laysula eegi lahaa laysula iman lahaa. aad bay madaxdaasina u mahadsan yihiin. waxa runtii iyaguna kaalintoodii mas-uuliyadeed ciyaaray oo arrinkaasi qeyb weyn ka ahaa madaxda gobolka barasaabka iyo barasaab ku-xigeenka iyo magaranaysaay guddoonka waxbarashada u jooga gobolka. rag miisaan leh oo runtii gobolka intii dee waxbarashada iyo maamulka gobolka ku lugta lahayd arrinkaa iyaguna kaalin weyn bay ka qaateen. waxa ay fududeeyeen in wasiirka waxbarashadu gobolka yimaado oo uu arrinka dhegeysto oo jaamacadda dhegeysto oo waalidka dhegeysto oo gobolka dhegeystaa bay fududeeyeen. aad bay u mahadsan yihiin madaxda gobolku haddii ku waxbarashada yihiin iyo haddii ay yihiin maamulka gobolkaba. waxaa runtii door muuqda ciyaaray oo waftigii Addis Ababa ka joogay jaamacadda oo uu maxamuud musbaar hogaaminayay la shaqeeyey, runtii aadna u fududeeyey oo si madaxnimo iyo mas-uuliyad ku jirto arrinka u fududeeyey oo soo afjaray. kusimaha safiirka mudane ayaan leh aad buu u mahadsan yahay. isaguna runtii door muuqda buu ka ciyaaray. wixii nagaga xidhnaa in aanu soo gebagabayno oo soo finalize garayno wafdigii naga maqnaa u joogeen Addis Ababa
muddo yaroo kooban ayuu kula soo afjaray. aad buu mahadsan yahay. runtii saaxiibo badan oo gudaha iyo dabadaba jooga oo aad u hefi weyda oo ayaa nala gurmaday oo nala shaqaynayay, oo doctor maxamuud iyo maxamuud xasan qatala iyo magaranaysa ay ka mid yihiin. dhalinyaro badan oo saxaafadda iyo dhinac walba runtii arrinkaa aad baa looga gurmaday. hadday tahay qurbaha oo dhan ilaa Maraykanka ilaa Yurub oo dhan ilaa gudaha gobolka Hargeysa. runtii dhalinyarooyinkii kala duwanaa iyo aqoon-yahankii shirarka jaraa'id qabanayay tilmaamayay jaamacaddaasi xadhiggeedu inaanu munaasib ahayn aad bay u wada mahadsan yihiin. waxaan kusoo gabagabeynayaa ingiriisku waxay dhahdaan last but not least, oo runtii aan mahad ballaadhan u celinaya wasiirka wasaaradda waxbarashada oo si mas-uuliyad ku jirto arrinka noola eegay, cagta u dhigay, gobolkii tegay, dhegaystay, jaamacaddii tegay, gobolka markuu tegay dhegaystay, waalidkii dhegaystay, arrinkii Addis Ababa nala hubsaday, nagala howlgalay, wixii aan uga go'nay iyo barsida ay u jiraan nala ogaaday, soona saaray markii uu dhinac walba arrinkaasi tallaabo u eegay go-aan kiisii ahaa in jaamacaddaasi ay furaato. inkasta oo aan wasiirka la kaftama magacii aan ula baxnay deena laga bedelay oo intii internationalkana lagala hadhay oo Togdheer University-na loo soo reebay, oo aan odhan karayo de magaciibaa baridii ka goosateenoo yeelkeeda dee waxa weeyaan magaca Togdheerba waa intaniba waa magac wanaagsan. wasiir waxaanu marti u nahay oo wasaaradda iyo commissionkaba aanu marti uga nahay in aanu helo cadaalad oo naloola dhaqmo sida jaamacadaha dalka loola dhaqmo. waxaanu dareemaynaa waxoogaa faquuqa, horena waanu uga cabanay, iminkana waanu dee tilmaamaynaa. waxaanu nahay jaamacadda qura muddo yaroo kooban oo bilo gudahooda 4 goor haddii aanay kaba badnayn meediyada iyo saxaafadda qaranka soo gashay, iyada oo ay wasaaraddu toos uga hadlayso. yani waxaanu runtii wanaag iyo mid dee nooc walba. marka waxaanu nahay jaamacadda qura aan maanta odhan karayo magacii ay la baxday wasaaradda ka bedeshay. jaamacadda qura ee magaca u bixisay baan wasiir nahay. waxaanu nahay runtii dee jaamacad u baahan oo marti idinka ah inaan gaar loo tilmaansanin, aanu noqono jaamacad ka mid a jaamacadaha dalka ummadda wax kusoo kordhinaya. waan dareensanahay oo wasiir runtii qadarin baanu kugu haynaa go-aankaagaas iyo sida aad geesinimada leh ee aad arrinka intaad u baadhay mowqifka uga qaadatay. runtiina dee waxayna dhex cararay uun shaydaan oo wax aynu iyadoo saxaafadba laysu gudbin la dhammayn karayay ama na la eegi karayay buu ahaa. ilaahay inaga dhex saar. khasaare badanna runtii wuuna gaadhay oo maadi iyo macnawiba baa na gaadhay oo dee runtii xisaabteeda iyo leh oo khasaare weyn oo ilaa imikadaan ugu socda baa na gaadhay. ha yeeshe runtii guul baa arrinkaas ku dhammaaday. ilaahay baa mahaddeeda leh. idinkuna wasiir waa ku mahadsantihiin madaxnimada iyo mas-uuliyadda aa muujiseen. dee bal khasaaraha na gaadhayna golaheedaynu la sugaynaa iyo wixii aa idinkuna dee arrinkaa nagaga xaal marinaysaan. waxaan runtii tilmaamayaa oo aan u hambalyeynayaa madaxda ama boardka jaamacadda oo intii aan go-aanka wasiirku soo bixin ka xaal siiyey wasiirka wixii qardoofooyin ahaa ee naga gaadhay. aad baan arrintaa usoo dhaweynayaa. haddii wax dhacaanna in la isdhaahiyo oo dhinac walba ma garanaysaa dee la xaal mariyo waa xaq weeye. waan ku taageersanahay apologygaas, waan soo dhaweynayaa. annagana bal dhaawac baa na gaadhay wasiir, arrinkaygaa hoos ha loo eego. nooc walba uu leeyahay dhaawaca na gaadhay. dee nabadgelyo iyo ammaanna waanu u baahanay inaanu jaamacadaha dalka sidooda naloola dhaqmo. aad baa u mahadsantihiin, waana idin wada salaamayaa. cid kasta oo ka dareen celisay gudo iyo dibad waan idin hambalyeynaynaa. waynu guulaysanay, xaqii baa guulaystay, Somaliland baa guulaysatay, Togdheer baa guulaystay, wasaaradda waxbarashada guulaysatay.
cid ardaydii kumanaanka ahayd ee ay mustaqbalkooda arrintan khuseynaysay baa guulaysatay waynu wada guulaysanay aad iyo aad baa mahadsantiin wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu